وايا ور دقدقه oo hadda ka soo baxay Masar madaxweyne Xasan Sheekh ayaa waxa la yiri si degdeg ah ku imaaw Qaahiro waxa uu yeeray ninka la yiraahdo Al-Sisi sidoo kale Xasan Sheekh iyo Masar iyo Djibouti sidoo kale Djibouti uu tagi doonaa laakiin arrinkan soo korortay waxay la xiriirtaa arrinkii shalay saxaafadda ka maqasheen ee Etoobiyaanka uu soo gabagabeeyay barnaamijkii dhismaha biyo leexsiga ee loo yaqaan GERD-ka ee webiga Niil oo shalay muuqaal aag soo diyaariyay sheekada way qarxday xitaa waxa baraha bulshada laga yaabaa inaan ku soo aragtay warar saxaafadda si rasmi aysan u qorin laakiin hoosuusay ah in Masar madaxweynaha Masar Al-Sisi uu go'aansaday asaga iyo saraakiisha ugu waaweyn militariga in la duqeeyo goobtan Etoobiyaanka uu dhisay aniga waxa ku soo arkay Twitter ku soo arkay sheekadaas goobtan Etoobiyaanka uu dhisay ee geedka loo yaqaano in hal gantaal ama laba gantaal lagu dhufto taasoo gabi ahaanba mashruuci 4 sano iyo ka badan Abiy Ahmed uu soo waday meesha ku soo gabagabeyn doonto marka su'aasha isweydiinaysa waxay tahay Masar ma awoodaa in diyaaradaheeda ay soo kiciso ama gantaal Masar laga soo dhex tuuray uu ku dhaco goobtan Ethiopia laga dhex dhisay ee biyo leexsiga webiga ama Masar ma awoodaa in diyaaradaheeda ay soo kiciso Suudaan ay soo dulmariso ama Eritrea ay soo dulmariso ee duqeyso Ethiopia jawaabta fudud waa yes way Ethiopia diyaarada casri ah oo fiican hawada kula dagaalami karo diyaaradaha casriga ee Masar ma haysato yani warka daa idin soo koobo cirka markii la imaado hawada Air Force markii wax loo yaqaan Air Force ciidamada cirka Masar waa sida Turkiga oo kale Masar waxay haysataa F-16 F-35 iyo xitaa sidoo kale Masar waxay haysataa alaabaha maalmahan laga daba dhacay ee Hindi iyo Pakistan markay isdagaalayeen Pakistan ay isticmaashay oo 5 diyaaradood oo Hindi ah dhulka lagu soo riday waa diyaarado casri ah miigag ah oo dagaal oo Shiinaha uu soo saaro J-10C alaabtaas Masar waa haysataa Etoobiyaanka wuxuu haystaa kuwan ay u jeedaan miigagii 40 sano 50 sano ka hor midowga Soviet u isticmaali jiray ay Etoobiyaanka haystaan maalin dhaxdaas xitaa wateen ugu barowayeen Soomaaliya al-shabaab ay duqeeyeen ayagoo diyaaradahaas isticmaalaa diyaaradahan iyo diyaaradaha Masar markay hawada isku arkaan kuwan Etoobiyaanka 4 dharbaaxo 5 dharbaaxo 6 dharbaaxo ku dhici karto ayadoona weli ku Etoobiyaanka ku Masar aysan indhaha saari karin ku Masar ayagoo 30 kilomitir xagga jiro ay soo ridi karaan kuwan yani marka dhanka cirka marka la laho Masar waa gabi ahaanba waa dominant way markii Ethiopia loo imaado Ethiopia Masar hadda xuduud ma lahan oo wadankan weyn ee Suudaan u dhaxaysada ogtiin waaya su'aasha isoo dinaysa waxay tahay maxaa loogu yeeray Xasan Sheekh kulankan degdegta ah ee loogu yeeray Masar maxay tahay aniga saadaalna idin si sheegaa saadaalin marka dhinac walba ka fiiri Xasan Sheekh hal mid loogu yeeray oo dhanka Djibouti looga yeeray dhanka Masarna looga yeeray caawa haduusan marka duulin Xasan Sheekh biri uu duulaya oo wuxuu socdaa Qaahiro u socdaa Masar markay duqeyso Ethiopia sababta loogu yeeray Xasan Sheekh waxay tahay Masar markay duqeyso qaybtan GERD-ka Etoobiyaanka uu biyo leexsiga Etoobiyaanka uu rabo dadkiisa inuu koronto iyo adduun iyo yani barwaaqo dhankooda ay gaaraan Etoobiyaankan uu rabo in barwaaqadii uu ka qaato ama cunaqabataan uu ku qabto Masar si dadkiisa oo Etoobiyaanka uga manfaacadsadaan biyahan Masarne dagaal ay ka xigtaan kore sheegtaba waataan hadda idin sheegay hoosuusida Masar ay go'aansatay inay duqeyso meeshaas dhismahaas asaga marka Xasan Sheekh waxaa la leeyahay Etoobiyaanka gantaalo dhaadheer oo Ethiopia laga soo ridi karo ee soo gaari karo Masar ma qabaan fiiriya Masar difaac ayada qadiyadeeda iyo dhulkeeda ay difaacanayso Xasan Sheekh loogu yeeray Masar marka waxay taagan tahay Ethiopian gantaal uu soo tuuri karo ani ima soo gaari karo Ethiopian hadduu diyaaradahan miigaga oo xaaji qamsinta ah oo bajaajta ah uu soo diro hawada Suudaan markay soo dulmarayaan difaaca cirka ee Masar aaba arkayaba sidaas lagu burburinaya Ethiopian hal wada u banaan uu ku weerar hal wada bas u banaan uu ku weerari karo Masar maadaama Masar maraakiib casri ah iyo diyaarada casri ah dhulkeeda yani amaan u yahay halkaas wadana waa 15 kan doomood iyo ciidamada badda Etoobiyaanka ee tababarteen ayagoona bad haysan fiiriya shakada inay fatiin adii karaba waxa waaye Ethiopia hadii meeshan laga burburiyo waa fiiri waxaan hadda adii la yaaban tahay ina la yaabtid ma waa tii hada maaldahaas ay ka dhax qaraxday Hindi Pakistan jucd la iska gadiyay
إيران إسرائيل الدون وحكو جرنا الإزدقالة قيرات يدول مركا هذا إسرائيل صار مركي شكل أنك نحكي الرالة هذا لكوا يدين بإسرائيل نكان نتنياهو مركو ويراي إن إيران محقد ودقدق وحيري إن أرمو وحواي إن national security أو إيران وحي كله ده وكلها ساعة أو قد من nuclear arms تاسكوير رسومه مصر ما أنت ماشي تاجن تاعي حدي أيسن بربورينين برنامج كان إثيوبيا هذا إدستي بيش سبتمبر يوحي كدام بايو بيلحسيقا بالعوانايو أو شكل وسوق بجود مركا حد وإنه طلعوا ميليتري قاعدة مصر وين سؤال مركا حشق صوبته لو غيره وحتى هاي حس الشيخ مراكب دومهان إثيوبيانكا دبجاحة دشيكها بلاهيد وصار الربص مصر وصو ويرارو halka meel kaliya uu naga soo gali karaa waxay tahay adiga xuduudaha shaqo Soomaaliya ciidamadan nabad ilaalinta sheegto Itoobiyaanka Soomaaliya gudaheeda joogo isla kuwaas ayaa awoodo inay Muqdisho mara doomankooda xukunka ay keensadaan anaga maadaama mid aan nahay wax tabar aanan heenin ibir aan nahay Itoobiyaanka baabuurtiisa meesha iska dhaxmarto beledweyne joogaan meel hada shabeelada hoos waa lagu sheegaa meel kasta iska joogaan marka قاعدة مركي اللي يجدي إثيوبيانك وتبر وايو وكويررو مصر حلقة أود أما حلقة وضع أفرنا وعيتهاي دوما كان يرير كأه قريها يري أساريين إن عيدا مضوضة بدأ إثيوبيانك عيدا بدأ قوان ما أنا نكشكينيني هذه هذا وين هذا أسوق على هذا كطالع هذه مركي المهم إنه دنكان صوماليا دوما كسوق كرة وما دام إريتريا وسنو دوان كريم إثيوبيا إريتريا ومدوان كرة واسكوابس جبوتنا ومد دوان كرو سلطيجي واوين وميليتري وقوة واوين وكيا لإثيوبيا أن جعل لا جدين كرا سوماليا ساسا لوجو يا حسن شيخ فيري إداس إثيوبيان كأه هذا أقولاتي دومه ذا إن مقدشة كصوبحان أما مركز كصوبحان أما بوصاص كصوبحان حتى أنا وحي إلى تعمل مع صوص عضو إن دني يونيك كلا إن يسمعلن لوجو يريدون مصر شيء كذا أنا جالس أفهمه وياه ماشي هسه أسي صعدها حس الشيخ هذا كمسؤول إثيوبيان هدو دومو كسو كرو دول كصوماليا وصبحوا وأنا جالس أصوره مركي جعل اللي يجدي إثيوبيان كدي والله هلو time will tell وقت يا شيء دور